السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadyaal idinkiiba meel kasta joogto. Kuna soo dhawaada warkii telefishinka caalamiga ee Somali Cable. oo idinkaga imaanaya xaruntiisa magaalada Muqdisho. Studio labaad ee magaalada Nairobi ayuu idinkaga imaanaya. Studio telefishinka magaalada London, magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, magaalada Toronto ee dalka Canada. Xarunta uu TV-gu ku leeyahay magaalada Hargeysa. warar sugan oo ku saleysan dhexdhexaadnimo, dheelitirnaan iyo hufnaan anshax saxaafadeed. kala soco oo kaga bogo telefishinka Somali Cable. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal meel walbo caalamka aad ka joogtaan kusoo dhawaada warka telefishinka Somali Cable oo xilligan idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Nairobi. anigoo Cabdullaahi Axmed Cali ayaana u diyaaraa qodobada aad daawan doontaan kuwada ugu doorka roonna waxaa kamid ah qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ee kasoo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxay kasoo horjeesteen madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed. dowladda Hindiya ayaa xukuntay in ka badan 25 Soomaali ah oo lagu eedeeyay burcad badeednimo. gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa wuxuu kormeer ku tagay goobaha dadweynuhu ay ka qaadanayaan kaararka codbixinta ee magaalada Cergabo. beelo horay ugu dagaalamay deegaano hoos yimaada degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay maanta ogolaadeen in la joojiyo xabadda sidoo kalena la kala qaado maleeshiyada dagaalantay. intaasi daawadayaal waa qaar kamid ah qodobada aad daawan doontaan iyagoo faahfaahsan ayaad goordhow daawan doontaan balse ku soo dhawaada qadar adeega bulshada.